howlgalkani oo ay ciidamada dawladda ka sameeyeen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa waxaa lagu burburinayay ganacsiga ku yaala hareeraha soo gala wadooyinka ku yaala gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Khaliif Axmed Erik taliyaha hay'adda nabad sugidda ee gobolka Banaadir oo saxaafadda kula hadlay goobaha ay burburinta ka socotay ayaa wuxuu sheegay inay ku guuleysteen inay furaan 3 wado oo soo gasha gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. hawshan waa hawl in muddo socotay waxaana ka qayb qaadanaya ciidamada qalabka sida gaar ahaan booliska nabad sugidda iyo dawladda hoose. waa hawl guul weyn laga gaaray oo lagu guuleystay mira dhalkeeduna uu yahay waxa aad u jeedaan oo ah jidadkii Bakaaro ee xirnaa in la furay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay maanta marayso ay ku ganacsanayso baabuurta ay marayso marka dadkan digniin hore u siiseen si wadooyinka markaas ay u banaayn shaqada dadkan digniin badan baa siiyay muddo dheer baa loo digayay haddana ayagaaba ku ganacsan oo ka qayb qaadanaya in ay wax ka dumiyaan oo ay alaabtooda ka arursadaan jidadkan ay furaan. burburintani ay maanta dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay ka samaysay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa walaac waxa ka muujiyay qaar ka mid ah ganacsatadii ku ganacsan jiray gudaha suuqaasi waxayna sheegtay dawladda inay burburisay goobo si sharci darro ugu yaalay wadooyinka ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha.